inaan iska soo noqotaan cafisna aan idin weydiino madaxweynaha insha Allah ta'ala gacmo furan idinku soo dhaweyno wixii khilaafaad jiray wixii tabashay hore jirtayba aynu halka ku dhamayno khilaafkan xaqi doorashooyinkana insha Allah ta'ala isagana waxaan rajaynaynaa in guurtu inaga gabagabayso in badan waa kala hadalay waa gabaaqnay waana ka yaani in badan waa ugu celcelinay hadal oo waxbarashada iyo caafimaadkoodii iyo deegaankoodii iyo meel wanaagsan ay marayaan way ku soo duuleenay burburiyeen oo baabiyeen waa dulmi baahid wax ka maqan dalka iyaga meel kale leeyahay Soomaaliland baan cid kale lahayn la saanood baan cid kale lahayn Soomaaliyan cid kale lahayn wixii diir madow waa isku diir waa isku diin waa isku dad waa isku dal reer sool ama reer la saanood waxaan leeyahay war meel idin dhaanta ma jirto meel idin dhaanta ma jirto bal ama ku adkaysta halkiinii hore oo wixii aad u soo dhimateen oo soo dagaalanteen inaad lahayd goonisu waan isugu taageynaa kulay idin hirgelmaysa idin soconmaysa Soomaaliland baa imka dhowr iyo 30 sanadood qaylinayso taagane waxa la caafis waa idin fideynayna wixii dal khaldamay rag ways qabtaa waana heshiya وانا لا دريدا وانا لا هشي ولي قد بسومالي ويس سو لينيسي وانا هشيس ما قدمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد marka hore xaaladda wadankeenu falillahi alhamdu wa ni'ma wal manna meel wanaagsan bayno maraysa ibn aadamka adduunyadu waa sagaal baa leeyahay ma tubnoodo ibn aadamku oo dhanna ama makhluuq oo dhanna waxba ka dhiman oo siyaada ka wada maqan marka siyaada way naga maqan tahay laakiin alxamdulillah way qofka ugu taajirsan maanta adduunka is oran maayo adiga ugu taajirsan iska seexo salaada hore kala haya oo ordaya kii faqiirka ahaan hadalkiisa bada marka alxamdulillah meel fiican bay noo maraysaa khilaafkan xaqi doorashooyinkana insha Allah ta'ala isagana waxaan rajaynaynaa in guurtu inaga gabagabayso in badan waa kala hadalay waa gabaaqnay waana ka yaani in badan waa ugu celcelinay hadalka inaanay carqalad labaad inagu abuurno khilaaf siyaasadeed oo dambe inagu celina sida hore ay ku ansixiyaan guurtu in badan baan ugu baaqnay haddana waa ku sii taakiidinaya xagga colaada runtii alxamdulilaahi rabbil caalamiin gobolka la saanood waynu ognahay imka marxaladdu ku sugan yahay iyo markii hore waxay ku sugnaayeen horta runtii meesha waxa dhex galay dad aan u rarin reer la saanood oo aan u furaynin ayaa dhex galay oo ay ku jirtay culaad guun oo Soomaaliland ka dhaxaysa iyo inay burburiyaan wadanka Soomaaliland iskama hubsan ayagii marka waxa la xaqana eeg baleedo xaqana eeg waxa ka sokeeyana eeg runtii taas asteegtay reer la saanood maanta marxaladoodu meel fiican bay mareysay maalintii ay dhibaatadaasi dhacday iskuuladooda caafimaadkooda yaani wadooyinkooda horumarkooda meel wanaagsan bay mareysay runtiina Soomaaliland way u hagar baxday xagga dhismooyinka wadada iyo caafimaadada iyo xaqi nolosha bulshada way u hagar baxday waxa tawdaan xagga xilalka ha tawdaan xagga dhaqaalaha kale waxa tawdaan xagga shaqooyinka gacanta yaani ama عملها هاتودان ابن آدم كله مو وده تبنيه وحوينا ويتبنيه نيجو لكن أنتي ما يهين إني يعني هالك جارسيان عرفت ما يهين ما أنتنا هالك يتاجيهين وحان أركينا إن حالة دو يكوس سجنت هاي إن حاشا لابد الرجال تعال دحدة دوراب كوعنا ومرنا أي بنتي لان ما أنت وسي شيدان قارنا أي سومالي لان وسي شيدان قارنا أي دحدة هنا دونيان ودن كبا يعني سوماليا بس كانوا الرجال ويصدق هذا نقدين حدقتي شد جيس لهذا يقول صدق جيسون كسر ريبان ومشى ما أنت صدق قولون يكون دميسه أيام ما أنت أنا أرجنا مركا واحد والله ما أنتي وحولي ننهى بريد الشيء اللي بس يجوايو ما أنتي فردية قبنا أيام مقدسان وكحلة مقدسان قصود وين أي waxaan ku wari aqligaas waxa ku wanaagsanaa maalinta inuu hargeysa yimaado lagu soo dhaweeyo afis loo fidiyo nimankaas iska soo xaroodaan dadkoodii dalkooda wax la qaybsadaan ayaa ku wanaagsanayd baan ku laakiin ma yeelin baan ku maanta sidii baan idin leeyahay waxa leeyahay afis waa idin fidineena wixii dal khaldamay rag ways qabtaa waana heshiya وانا لا دريدا وانا لا هشي ولي قد بسومالي ويس سو لينيسي وانا هشيس ما قدمي جري iyo in
جوجل وحلاقو ميل وحلاقو وضعنا حيرة قعنت لو ذا قليو وحلا إيه مكانه مرحلة إنه تاجنتين هداتين ريلا سعانات ما هرنتي يعني مرحلة ونكسر معها وحي أكون فكرة سين أما أود أقلم سين الله هيدا قبل وحنا دون أقوني ستاك سومالي لان بقى يويدي دويدي كمان تا وكلا دايرين هي بونتلان أو حد ما ندي سكو حيستا وحن الله يا ولا ليال كل ابن هذا الخداون يحب الله خداون توابون بالنبي عليه الصلاة والسلام ابن هذا مكون أبوه خالد ما إلهي نوح وقتش عليه يكون قفكو ذكرته صون نقطة وحن لا صون نقطة dad walaalaabaynahay wada dhashay kala tagi mayno doqon hadii la ficiltamo in la kala tagayay moodaa kala tagi mayno wixii dhibaato ee meesha ka yimi wax la idin raacayaana ma jirto caafisna waa idin fidinayna insha Allah ta'ala waxa la idin raacayaana ma jirto wixii dambe han aayaheena ka tashano dib ay ku noqotay hadalkaygii hore aan soo media ka iri وارمنارتي سوديبا waxaan u jawaabay oo suldaanka oo yiri waxaan qabsanaynaa burciye berberi hargeysa ka un baan lahaa waraadkiisa soodib runtii oo qof aan erga ugu gelin baa leeyahay waranka qof aan hadalka ugu gelin baa leeyahay qof aan waranka ugu gelin hadalkaagu ma galo marka imkan waxaan leeyahay reer sool ama reer la saanad waxaan leeyahay war meel idin dhaanta ma jirto bal ama ku adkaysta halkiinii hore oo wixii aad u soo dhimateen oo soo dagaalanteen aan lahayd goonisu waan isugu taagayna kulay idin hirgelmaysa idin socon maysa Soomaaliland baa imka dhowr iyo 30 sanadood qaylinay soo taagane wal ku adkaysta meel hadad ku meerto wal guun gagsadaa baa leeyahay oo yaan waxaan aan maqmaqlay joojiya iyadaba aan u kala dhuumashadan Puntland oo kala dhuumanaysaan ama Soomaaliland baa haydana kaalay warka moodi soo dhaweynaa oo halkiinii hore kaalaya laakiin laba ceeriyo bisel wixii ka dhaxeeya waa yaciyood ragana waa looga wanaagsan yahay inay labada waa looga wanaagsan yahay marka insha Allah ta'ala anigu saasan idinku baaqaya ilaahay idinkii khilaafkaasi waa kan ka hadlayno ee aan arkayo weeyaan waayo Soomaaliya waxay tiraahdaa labadii xaq darrada ku heshiisa xaq ay ku dirtaa markii horeba dulmi bay ku heshiiyeen dal lisan oo dadkoodii dhisan yihiin oo waxbarashada iyo caafimaadkoodii iyo deegaankoodii iyo meel wanaagsan ay marayaan way ku soo duuleenay burburiyeen oo baabiyeen waa dulmi baahayd wax ka maqan dalka iyaga meel kale leeyahay Soomaaliland baan cid kale lahayn la saanood baan cid kale lahayn Soomaaliyan cid kale lahayn wixii diir madow waa isku diin waa isku dad waa isku dal adar shantii Soomaaliyeed baan doonayay in soo ku soo celin lahayn adna wati waxba leedahay maanta la saanood bad leedahay wala gooy wax macquul ma marka dulmigii runtii ay ku heshiiyeen ayuma maanta ku duldilaaco ku maartay xaqiyum bay ku dirirayaan saas ma aanu arka khilaafkan inuu ku ka yahay waxaana kaliya lagu xallin karaa waxa weeyaan in shay walba halku ku haboon yahay loo daayo waayo dalku waa Soomaaliland bay wax la leeyihiin la dhaqan yihiin dal iyo dadba ka dhaxayaan wax la qaybsanayaan hadday go'aysana Soomaaliland bay la go'ayaan hadday ku Soomaaliland kuwa kale ku biireysana Soomaaliland ayagoo ah meel kale ku biirayaan laakiin wax ka dhaxeeya ma jiraysa wallahi aqligiina taa u sheega waxaan anigu hadalkayga ku soo gabagabayn lahaa khilaafka taagan imaka xalkiisaan idin sheegaya haddaad tihiin ishimadii dhaqanka xalkiisa waxa weeyaan inaan iska soo noqotaan عفسنا أن يدين ويدينه مدحوينها إن شاء الله تعالى قعمة فرنا يدكوا سود وينه وحي خلافات تري وحي تبشهورة ترتبه إنه هالكا ما إنه أي إن شاء الله تعالى أن يدكوا لتلينيا ساسان ذي لي هداتين إيش مدي دقنك ساهين أنا إلى ما هبونا وأنا تكلي إنه لجو جد بكرة خلاف كمان تدحدينا يلا يو مارتي أن سلعانتا كل ما مارتي دينا وعرك تاسا لقى قد بيا